qof walba wuxuu leeyahay maalin anigana maalinteenu maanta waaye haddaan nahay baxda saxaafadda. maanta waxay ku beegan tahay 3 May oo ah maalinta xurriyadda saxaafadda caalamka. maanta 3 May ama 3 May waa maalinta saxaafadda. aragta Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha inoogu badbaadiyo hawsha adag ee bulshada aynu u hayno. vlog ma jeclaan xaafadeed ku soo baxayna idin soo bilaabo laakiin way ii suurtagal weysay anuu hurdadii ku daahay iyo wicitaano badan oo la ii soo wacay adle ka dhimin leeyahay waa soo cararay waxa soo qabtay wadadii dheereed ee airport tane hotel bis uu ka dhacayay agaarka aadan cade international airport xaruntii baweynte Soomaalida baayisay digii dalkaygiyo wada aragtidayda xaruntii baweynte Soomaalida baayisay digii dalkaygiyo wada aragtidayda kala soo dhaxadlaya YouTube ay ku qorataa Fortune Podcast idin kala soo hadlaya marka ugu horeysay ee soo booqata hadaa tahay fadlan subscribe-ka ila dhaafin si aad ugu mid noqotid dadka inuu soo xirmi doono isla markaa la socdoono muuqaaladeena kala xiga maanta waa 3 May waxay ku asteesan tahay maalinta wariyaasha adduunka waxaa jooga Hotel Bis waxaa ka dhici raba xaflad weyn taasi oo sababteeda iska leh maadaama 3 May maalinta wariyaasha adduunka ay tahay waxaan idinka rajaynaa guys in ay soo hambaliyeysiin hambaliyeyso wada qora xafladanta joog waxaa ka dhex arki doontiin waxyaalo kala duwan qaasatan wariyaasha isla shaqeeyna iyaga dhan way joogaan waxaa waaye lama kala dhacaan waaye xildhibaano xitaa way joogaan siyaasiyiin wariyaal wasiirado inta waa ku arki doontiin inta ku guda jiro fadlan marka ugu horeysa hadii tahay subscribe-ka igu dhiirigeli aad u mahadsantiin waayahay guys wili vloggeena quruxda badnaa idin wadaa hotelkii ku suganahay maalinta 3 May waa maalinta wariyaasha adduunka waxa ila fadhido gabar ayadana kamid ah wariyaasha ka howlgala gobolka Banaadir Amiir Suleymaan soo dhawo qalbi waa dhawahay Fortune aad u faraxsanahay mar kale in janaalkaaga ka soo muuqdo maalintii ugu horeysay janaalkaaga ka soo muuqdo waaya maanta waa maalin farxad gooni anaka noo naadinahay saxafiyiinta Soomaaliyeed waa maalinta saxaafadda ama xurriyadda hadalka ee saxaafadda maanta 3 May ama 3 May waa maalinta saxaafadda sidoo kale waxaan ka hadlaynaa tacadiyada iyo caqabadaha ku horgudban ee saxaafadda hadii wariyaan ahayn maanta maalin weyn ay noo tahay Fortune janaalkeedana inaa ka soo muuqdo aad aan ugu faraxsanahay sidoo kale waxaan leenahay saxaafadda dhammaan iyo xurriyadda hadalkaba maalinta 3 May waa maalinteeni hambali waa ku dhawahay Fortune Podcast-na waa markii ugu horeysay ka soo muuqdo aad iyo aad ugu faraxsanahay markaan kaliya kuma ekaan doono waxaan jeclahay marar badan oo kale ina broadcast-yada aan soo fadhiisto Fortune ay u horeysato markii xigta waxaan ku suganahay maanta munaasabad ka dhacaysa Hotel Bis taasi oo ujeedadeedu ay tahay maalinta xurriyadda hadalka oo ku beegan 3 May sanad kasta maanta oo kale ayaa la xusaa isla markaana loo dabaaldegaa barnaamijkana waxaa soo qaban qaabisay SJS ana waxaa ka mid ahay wariyaasha ka howlgala caasimadda Muqdisho mid ka mid ah warbaahinadooda hadii aan carabaabana Himila Somali TV ayaan ka shaqeeyaa waan ku faraxsanahay maalinteena in aan u dabaaldegno isla markaana xurriyadeena aan qaadano qof walba wuxuu leeyahay maalin anigana maalinteenu maanta waaye haddaan nahay baxda saxaafadda 3 May waxay noo tahay maalin gaar ah farxadeena lama soo koobi karno waa u dabaaldegnaa hadiyada isku doonsiina aad iyo aadna waa ugu faraxsanahay inaan yeelano maalin gooni ah oo waliba loogu doodayo xaqa saxafiyiinta kuwa Soomaaliyeed kaliya ma ahane guud ahaan caalamka oo idil hambalyaa leeyahay guud ahaan saxafiyiinta dunida daafaheeda meel kastoo ay ka joogaan bismillaahi raxmaani raxiim magacayga waa Cabdullaahi Cabdiqaadir Axmed dadka qaar waxay igu yeeraan si kaftan ah wariye ma aroostay kadib markii senator Muuse Suudi Yalaxow oo wareysi aan ka qaaday uu igu yiri ma aroostay markii intaas laga soo tago maanta waxay ku beegan tahay 3 May oo ah maalinta xurriyadda saxaafadda caalamka gaar ahaan marka la joogo Soomaaliya annaga waxaan maanta u dabaaldegaynaa maalinta xurriyadda saxaafadda oo ku beegan 3 May marka la joogo Soomaaliya waxaa ka jirta xaalad adag oo ku saabsan saxaafadda Soomaaliyeed gaar ahaan wariyaasha Soomaaliyeed ee ka howlgala
guud ahaan dalka Soomaaliyeed gaar ahaan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka oo runtii xaalado adag oo halis ah wariyaasha Soomaaliyeed ay ku shaqeeyaan oo naftooda xataa halis gelin karta. Waxaan ka mid ahay wariyaasha ribootarada ah ee bannaanka uga soo warama dadka Soomaaliyeed ayagoo u soo gudbinaya dhacdooyinka waqtigaas taagan ama wixii laga soo gudbiyo oo u baahan ummadda Soomaaliyeed inay ogaadaan xogo badanna ay ka helaan. Waxaa runtii ka mid ahay wariyaasha Soomaaliyeed ee u istaagay in shacabka Soomaaliyeed ay u soo gudbiyaan waxyaabaha taagan amaba u baahan in ummadda Soomaaliyeed ay ogaato ama dadka aan hadalkooda meel dheer gaari karin. Maanta waxaan u dabaaldegaynaa maalinta xorriyadda saxaafadda Soomaaliyeed iyadoo xaalad halis ah saxaafadda Soomaaliyeed gaar ahaan wariyaasha ay ku shaqeeyaan. bismillaahi raxmaani raxiim anigoo ah Ismaaciil Maxamed Sid Cali kana mid ah suxufiyiinta Soomaaliyeed ee ka howlgala warbaahinada magaalada Muqdisho maanta oo ah 3 May 2026 oo ku asteysan maalinta saxaafadda adduunka. Waxaan halkan rabaa in aan ugu hambaliyeeyo dhammaan saxafiyiinta Soomaaliyeed ee ku sugan gudaha dalka iyo maaragta dibaddiisaba. Waxaan leeyahay maaragta Ilaahay subxaanahu wa tacaala ha inoogu badbaadiyo howsha adag ee bulshada aynu u hayno. Waxaan leeyahay sanad guuro wacan, hambalyo hambalyo hambalyo.